golaha mustaqbalka Soomaaliyeed wuxuu ka xun yahay in shacabka Soomaaliyeed ku wargeliyo in wada xaajoodkii ay kula jireen dawladda federaalka oo ku soo dhamaaday natiijo la'aan. Goluhu wuxuu wada hadalka ku galay niyad wanaag iyo in dalka looga turo xaaladda adag ee ku sugan yahay sida abaaraha baan kala qaybsanaanta culaysyada dhaqaale iyo saameynta isbeddelka nidaamka caalamiga iyo loolanka juqraafiga siyaasadeed ku yeelan karo dawlad dhiska iyo midnimada dalka. goluhu wuxuu kaloo xil weyn iska saaray ka hortagga hubanti la'aanta siyaasadeed iyo xaqiijinta hannaan doorasho oo heshiis lagu yahay waqtigeedana si nabdoon ugu qabsoonta ka hor inta aanay dhammaan muddo xileedka sharciga ah ee hay'adaha dastuuriga. goluhu wuxuu wada hadalka kaga qayb galay isaga oo aan ku xirin wax shuruuda diyaarna u ah tanaasul kasta oo horseedaya xasilooni iyo midnimo qaran. goluhu wuxuu wada xaajoodka ku jiray iyadoo ay dawladdu sii waday wax ka beddelka halka dhinaca ee dastuurka iyadoo xildhibaanadii baarlamaanka si sharci darro ah loogu diiday inay ka qayb qaataan ugu yaraan 50 xildhibaanna la ganaaxay laguna kacay handadaad iyo cabsigelin amni. muddadii wada hadal socdeen waxaa cadaadis amni iyo mid siyaasadeedba la saaray xubnaha golaha waxayna warbaahinta lagu faafiyey sheekooyin sumcadil xambaarsan tallaabooyinkaas oo dhammaantood wiiqayay kalsoonida iyo niyad samida wada hadalka. xudunta ismariwaaga iyo kala aragti duwanaanshiyaha labada dhinac golaha mustaqbalku wuxuu ku adkaystay in dastuurka kumeel gaarka ee 2012 uu yahay aasaaska sharciga ee dalka u degsan wax ka beddelkiisuna u baahan yahay heshiis qaran oo loo dhan yahay wada tashi dadweyne oo dhab ah iyo in la ilaaliyo dhalitirka awoodaha labada heer ee federaalka. dhanka kale dawladdu waxay taa beddelkeeda ku adkaysatay inaysan cidna u joojinaynin. goluhu wuxuu ku adkaystay in doorashada dawlad goboleedyada muddo dhaafka la qabto iyadoo la raacayo sida uu dhigayo dastuurka dawlad goboleedyada iyo mabaadi'da dastuurka federaalka ee kala soocaya awoodaha labada heer ee dawladda. taa beddelkeeda dawladdu waxay doonaysay in doorashooyinka dawlad goboleedyada lagu qabto sharciyad doorasho iyo habraacyo ku salaysan dastuurka wax ka beddelkiisa la isku haysto iyada oo doorashooyinka maamul goboleedyada la hoos geynayo guddiga doorasho ee federaalka loona qabto sidii tii ku shubashada ahayd ee sanadkii hore ka dhacday gobolka Banaadir. goluhu wuxuu soo bandhigay baahida loo qabo ka hor 14 Abriil in la gaadho heshiis siyaasadeed kaasoo ku saabsan hannaanka doorashada baarlamaanka jadwalka iyo maamulka si loo xaqiijiyo doorasho daahfuran oo loo dhan yahay ka matalaad ballaaran kuwii hore laguna fulin karo muddada dastuuriga ah ee harsan halka ay dawladdu soo jeedisay in guddigu ku ekaado tala bixin aan lahayn wax awood go'aan gaarisa. mowqifyada iska soo horjeeda waxay ka turjumayaan farqiga u dhaxeeya labada dhinac. golaha mustaqbalku wuxuu ku dhagan yahay dastuurkii heshiiska lagu ahaa awood federaal oo dheelitiran iyo hannaan doorasho oo heshiis lagu yahay halka taa beddelkeedana ay dawladda federaalku doonayso in la beddelo dastuurka awoodda lagu soo ururiyo xarun dhexe golaha mustaqbalka iyo shacabka Soomaaliyeedna la kala dooransiiyo doorasho hannaankeeda habraaceeda maamulkeeda iyo natiijadeedaba ay iyadu hayso ama muddo kororsi. haddaba goluhu wuxuu go'aansaday inuusan maxlal iyo maqaarsaar u noqon doonin dastuur la beddesho doorasho lagu shubto iyo in dalka iyo dadka Soomaaliyeed la kala jaro. mas'uuliyadda koowaad ee goluhu waa difaaca dastuurka nidaamka federaalka iyo doorasho heshiis lagu yahay oo sharci leh si loo ilaaliyo midnimada dalka iyo wada jirka ummadda Soomaaliyeed. golaha mustaqbalka Soomaaliyeed wuxuu cadeynayaa inuu diyaar u yahay wada hadal dhab ah si loo gaaro natiijo miro dhala. taasi waxay ku dhici kartaa in heshiis laga gaaro doorashooyinka dalka ka hor inta aysan dhammaan muddo xileedka hay'adaha dastuuriga sidoo kale in dawlad goboleedyada muddo xileedkeeda la dhaafay ay qabtaan doorasho heshiis lagu yahay oo waafaqsan dastuurka dawlad goboleedyada iyo hannaanka federaalka isla markaana dawladdu joojiso tallaabooyinka halka dhinaca ee lagu beddelayo dastuurka ummadda Soomaaliyeed ka dhaxeeya. ugu dambayn goluhu wuxuu shacabka Soomaaliyeed u xaqiijinayaa inuu u taagan yahay ka hortagga inuu dalku galo firaaq dastuuri ah iyo kala qaybsanaan. wuxuuna aaminsan yahay in Soomaaliya u baahan tahay hoggaan diyaar u ah tanaasul ilaalinta midnimada iyo dhowrista dastuurka.
mar walba 4 sano xariif ka leeman loogu dibaa war ninka ilaa 30 ka noo joogniyo asi aan baroweyno 4 sano kale aan ugu darno musuqmaasuq joojiya macna aragna horta midaada kale ninkan la dhahayo Axmedow iyo Dani maalin walba foodo leh wadan tii farmaajo waa ogeen dawlad walba ay foodo leh wadan magaalada amni laakiin gaajo lagu dilma inta kale ku fiicnaysa xasan shiid ma hayna xasan inta kale seef waaye laakiin tii shiid ahay oo diish noogu bedelay aniga shirkaas waxaan arkaa guul inuu ku soo dhamaaday Soomaali ay guuleystay shacabka Soomaaliyeed haddii Dani iyo Axmed Madoobe wax ay rabeen laga diiday xasan oo ku soco farmaajona waa ku hayna difaac kugu jira ku hada iska burshad farmaajo difaac kugu jira hayay farmaajo saciid inuu anaga muqdisho imaado oo 4 nin oo guriga laga dumiyo guriyana laga dumiyo hor fadhiisto wadanka uu baqa u yiraahdo horta awalan ka maqal la waa soo cabaaraynaa nimanka la yiraahdo Israa'iil soo cabaaraynaa afkiisa laga maqlo kulley macnaha madaxweyne xasan sheekh waxa uu dhahay aniga maalintii qof aan ahay habeenkii qof aan ahay casirkii qof aan ahay duruufaha ay bedelayo xilligeeda hadda waa marka duruufaha waa bedeleen waa isbedelja 300 digrii oo wareegay waanu ku saxsan yahay asaa ka madaxweynaha nimankan waxaan leeyahay iska nasta madaxweynaha ka dambeeya xasan sheekh wuxuu ku xiray asxaabtiisa dhan fiiri hadda macnaha dibadda Sacuudiga Masar dad Turkiga dadku ugu xirayaan waxa way dad iyaga dhan meel ma u socdo la dhahay waay casharkaas waa ku socdo waa daalaysiin 2030 ka asilay waaye yaalis daalinin xasan cad ku socon ku dhaay waxa xaqiisa xaq waxa cunaysa cun waxa leefaysa leef anagana macnaha qoor doorasho qof iyo codanka sugoyna hal qof aan wadana oo farmaajo la dhahay waana asaa macnaha aan kula gaadoyna hada aad ka reesid boqortooy hata marka finaalka ma intaan kale waxa way u soo qabeysay cid ku celin karta malaha xarfaantan kale ilan fiiri horta waxa isku haystaan ku sheega laba waay dadkan oo maamulada oo hadda macnaha mucaaradka leh ama umurka samata bixinta ama macnaha mustaqbalka la sheegoy waxay rabaan doorasho teendadii ninkan teenda waaba cunaba meel lagu dhisaa habarteeda ka tab ma jirto dhahay doorasho qof cod waa dhahay anaga filinka isaan noo daadiye haday ka baxdo dawladda waxaan arkay inay qaa'in tahay doorasho qof cod ku dhaaratay iidaa tiri doorasho qof cod qabana way ku qasban tahay inay qabato markaan haday qabo weysana anaga waxaan wax cid la aaminaa jirin kaanada hadii isku soo noqdo xasan sheekh baano noo sheegay laakiin hadii doorasho qof cod qabto oo saxsan yahay odayga ha laga leexdo xasan joker Allah xasan cadde xasan ha laga leexdo aan dhahay joker sidiisaba turubka saddexda meelood meel waa dhaxgalaa leemohaasi galuuskar macnaha loo barkanoola waay meel kale waa ka nool yeemo xasan sheekh maxamuud marka waxaan leeyahay ku soco wayahay marka yaa eed la saara ama madaxweynaha la saara ama kuwa ogolaad mustaqbalka maadaama shirka lagu kala tagay waxba ay ka soo bixin yaa eed iskale iyaga iskale filin laga tagay iska daba socdaan wali taana goormay mar walba 4 sano xariif ka leeman loogu dibaa war ninka ilaa 30 ka noo joogniyo asi aan baroweyno 4 sano kale aan ugu darno musuqmaasuq joojiya macna aragna horta magaalada amni laakiin gaajo lagu dilma inta kale ku fiicnaysa xasan shiid ma hayna xasan inta kale seef waaye laakiin tii shiid ahay oo diish noogu bedelay taas waa ka xumahay xasan waxaan leeyahay wax qabad sameey ummadan macnaha waqtigii wax loo qaban lahaa la joogaa madaxweyne original ah tahay madaxweyne fake iska dhiga ada fake iska dhigo marka waxaan ku leeyahay shacabkaaga u arxan shacabka masaakiinta wax u qabo haddana xilligii oo macnaha dudumiskana gab ka dhah hadda Ramadaan waaye bil Ramadaan wax duminaysin gab ka dhaha hal iska dhaafo shacabka masaakiinta iyo ku habaarin wayahay dabcan Soomaaliya siyaasadda waan u jeednaa halka ay joogto oo laba garba ku loolamaya oo mucaarad iyo dawladda ku loolamaya maxaad dantu ku jirtaa marka loo eego shacabka Soomaaliyeed oo duruufaha adag wajahay ama as shacab yaaba ka warqabo meeshan dadka ayagoo Ramadaan lagu jiro shacabkina abaar ay dilayso ay hoteelo afar 10,000 boqolaal kun oo dollar ay ku bixinayaan ya ورتعني وحي ما بأخاني برتنيا ولا مضح ولا معارض إيه قد نبني عنها ما أخان هو فاهم الله معنا الشريعة ما اللي فاهم الله مدينتي أنا أكل لقى مرتي الله وراني وفاهم الله هذا المركز وحن لا إله يسوع الدين أنا ما راح أنا أجعلنا حسنا وكسعة فرماجنا وكوهنا بدفاع وكوجرا كوه هذا أسكت برج فرماجة دفاع وكوجرا هاي فرماجة runtu waa horta shirkaasi wuxuu ahaa markii horeba waa tashi ahay masiirka mustaqbalka ummadda Soomaaliyeed laga wada hadlayay aniga shirkaas waxaan arkaa guul inuu ku soo dhamaaday Soomaali ay guuleystay shacabka Soomaaliyeed haddii Dani iyo Axmed Madoobe wax ay rabeen laga diiday waayo ay waxay daneynayeen in xildhibaano ay ku soo qaataan dibbil ay ku soo qaataan oo dadkaas wax matalaad iyo aan lahayn iyo fikir aan ugu soo dooranay ay ku soo qaateen
haddii taas laga diiday ani guul aan u arkaa waxaan leeyahay madaxweyne waa ku mahadsan tahay waxaan ka shaqaysaa in dadkani iyo dalkani ay dadka ay rabaan ay doortaan mideeda kale ninkan la dhahayo axmedoobe iyo dani maalin walba foodo leh wadaan tii farmaajo waa ogeen dowlad walba ay foodo leh wadaan dowlad walba foodo ay wadaan wax wadanka ka qabtaa la leeyahay ya سياد بران هرب وحوري حكم جلعسن يقول جلعسن أنا وقر ملك يا جلع حسس كاركن واحد أنا وحنا إلى هاي لبضع سنين لبعضها قوة ذان قمة الصوماليات هلا يقبطوا متكسر صدق حين واشق شريف صدق هذا لأن هذي اللي يقبط الصومالي وحق من سنة الصومالي إني دولة جيرانك الله صدق رفض أنا قرني حاجة اللي يكون كبير وحق أنا من سنة من ذلك له وحق كسور جدا ninkan shaqada oo qabtay shidaalka la qodayo waxaan horumarkan yar oo ahaysan waarki laayay marka maalin walba in meesha aad taagnaano ma suurtagalays garowe niman ciise maxamuud iska astaan nin la yiraahdo jamcaala siga maamusho waa ognahay wax uu ka tara male hadda soo ma la yiraahdo boosaaso mashruucaas ka dhax fadhiyo wax ay ka qabtaan oo maanta uu wax ka galo سعيد معندي كرام سعيد قروح ما أنت مقالة وحكا قررت مجران سعيد إنه أنا مقدسين ماذا وأفرني إنه قريان لقدمي قريان لقدمي لو هرف اليستا وطن كان بقى وير هذا قلت أولا كان مقال له صعب بارينا إنه كله هذا إسرائيل صعب بارينا أفكي سالك مغلو إنه إمارات دي وعدليل كوا إنه مدعويني قرن كانوا كنت الماما نين قرن كبربرينايو وإسرائيل لحب بارين وايو وعماش الدليل نوغا موغتو مدعوينها إنه يا مدعوينها عدالة وسعيدنا يا على سوق شقايسته oo ummadana qarimaa in laga qabto mudan mid kale aan dhihi lahay Axmed Madow warba malakaas kaas Axmed mabalaba Axmed asu ka imaaday taariikhdiisu waa ayna anaga ma uu jawaabay inta reer Muqdisho siyaasiyiinta horta waxaad ogaataan talaabo la qaado Saciid wax talaabo la qaadi kara male wallahi wax la qaadi karo oo billahi la qaadi karo meesha ma salaadi Xasan Maxamuud iyo shacabka Soomaaliyeed reer Muqdisho iyo gobolka Banaadir oo mugaamiyo iyo yabaha ku xigeenaya siyaasadda iyo tali macluumaadka niga soo horeey wax kale arkaysiina male waana isdooranay 390 xildhibaan oo gobolka Leena waa soo bixi doonta maalmaha soo socda madaxweyne Xasan wuxuu ka tagay doonaa baydhabo maalmaha soo socda waxa la daafuro doonaa codaynta dowladda deegaanka maamul goboleedyada adiga waxaan ku marka waxa uu sheegay oo dhihi lahay horta waxa dhihi lahay on ka codsan lahay dadka reer Muqdisho siyaasiyiinta oo la hadlooya ha ku ajarmana Saciid meeshu ka hadlay cadaalad dadkiisu ma cadaalad falin maamulka shirka doorashada lagu doortay Saciid lagu doortay uu ku shubtay asaab u baahan laga hadlo taas waxa ku saaray Axmed afar oodiyo meelaha ka wacdayo dad u soo culculeen ilmiyo oo istaafiyadiisiyo kuwa airborada isbitooniyaashiisu xildhibaanna ka dhigtay waa la soconaa nimankaas uma baahna in cadaalad nooga sheekeeyaan ma u baahna in koonfur galbeed oo wadankiisa nalaamsaday dabaqaya ka dhistay qurxistay in afaara gistaaba ma ahaba in ka hadlaan galmudug cirkay maraysa hadday u socoto ceelal shidaal nin shidaal qabanaayo in dadkiisa oo jibhad ay haystaan haddaas cidari habeenkii ma tegi karaa bas cid ku dhaxlo waa kaas عريس معود هذا حمرة أنت عمري على حوشة وفنية سعيدو هذا كوب باش موصل كوري أنت سعيد مرعو بلاين إسكندام عبر بلاين كمريد هذا كوب سعد والله وعمين أريد كر اللي ما ذن ونوح لين سدح بقول سكاسي لأن مقصود كل السنة واي سومالي وإذا الكومن جل إجرير له ومد سومالي وإذا شاي وعندي لا عد كور استاجة كرتا لما يهو وحوى رونا إذا شاجة كبتينا إلى شذا مفهد مقالة مقدسو والنبض قبل كيننا والنبض سومالي وأول لفاقتها مفهد دارو ميل نجم جيرو دير ميل نجم جيرتو هوي ميل نجم جيرو وحوى عد ميل كلا ما جيرتو وحوى هلا نكليه وحوى magacii Soomaaliyeed waa shacabka ay iskale dadana qoto shacabka iskale waa shacabku waxay isku leeyihiin shacab maanta duwanaadka dawlad iyo shacab mar walba awood badan halka wadankan dawladda ku awood badan shacabka ay hoos ugu liidato haddii shacabka israacsanaan lahaayeen amarkooda loo fulin lahaa sankaas ka hadlaayeen laakiin shacabka waxay dhaxtaala qabyaalad iyo qurun oo biri kamaal meel aan gaarsiineen
إن هذا كرفنت كبدا يوجد إن هذا ويلك كرفنت يوجد إن هذا ماودي إن هذا قبرك العكتي سيقبح ماودي إن هذا ماودي تاس بلايو دنك waxa keenayso xeetay shacabkiya waxay ku dhex jirtaa qabyaaladii qurun birina karfantoodii loo qaaraama karfantoodii qaaraan way shacabow adinka maanta awood iskale adinka maanta dawladdan ka awood badan hadaa israacdaan oo isku tiirsataan oo maanta aad ka fikirtaan noloshiina ayina dambe dawladdan hoos iimaanay